mar una waxaana soo gashay 3 jiha waxaa naga soo gashay 3 qarax oo isha mid kastaba godadka ciidanka uu qodan yahay oo loo yaqaano tarajaayga lagu soo dhuftay wixii ka dambeeyay hub waaweyn oo noocyo kala duwan leh oo biitam qoryaha la yiraahdo biidneen iyo suugada la soo garaacay iyo horta aniga xooga dalka ahay waxaana ka sii yahay guutada la yiraahdo gorgor saakay subaxii 12 la ku galay meesha la yiraahdo cusweyni ugu yaraan hal saac iyo barnaamij dagaalamaynay ugu dambeyntii meesha waa lagu jabay ciidanku way ku dhamaadeen baabuurtii ciidanka waa la furtay oo shidaal la'aan ay ahaayeen qaarkood baabuur duqooday ahaayeen saacadii ciidanka waa la gubay rasaasta waa la qaatay dad nool waa la watay saraakiisha ciidanka ugu sareeya taliyaha guutada waa dhaawac taliyaha ururka koowaad waa dhaawac taliyaha ururka afraad waa dhaawac abaanduulka ururka koowaad waa dhaawac waxaa kaloo jirta taliya horimo ilaa 3 gaaraya waa dhimisho ciidanka oo caadiga waa tiro male xisaab lama gaaro anigu la hadlay dhaawac yar soo gaaraan waxaan joogaa galcad saakii horaan soo baxay ciidankii qaarkii waa nolosha lagu watay oo hadda la soo sheegay xitaa aan ku dhihi karo hebel iyo hebel niyow marka diyaaradii horta oo qayb meeshu ciidan badan joogay qaarna waxay ahaayeen ciidankii lagu soo tababaray Ethiopia oo nin la yiraahdo Shax Macbad Liigota ka ahaa qaar laga watay waxaa kale ciidan laga watay laga qabtay guutada gorgor inka yani magaciisa waaye Abdikaafiya la yiraahdo laakiin naanas ahaan waxay u yaqaanaan ciidanka Gujis sidaas hadda la ii sheegay arag oo ila socdo oo magaalada kala soo wanaag caafimaad qaba aniga waxaa dhaawac yar ah waana daalana ugu yaraan 30 kiiloomitir soo lugeeyay marka xaafad yaraan iska jooga marka walaale gaadiidkina waa la gubay ilaa hadda saacadan aan kula hadlayo waa 6 saac kaga aan leenahay oo nolol iyo kirimir jiraan kula leenahay rag waa naga dhaawac waxa yani hadda waxa qaada male maanta diyaar maray inoo timid waxay tiri meeshu abni maahan misoo digi karo meeshu ciidan gurmad oo ka soo baxay galcad ama ciidan ka soo baxay misoo gaari karo waa dhaxday waxa ku jira nimanka khawaarijta ahaa walaalkaygi oo marka ciidankan intaas oo sanad ka tirsanay gurigeedan oo kale ma arkin marka waxaan la yaabanahay ma dawladda shabaabka ma dawladda marka walaale intaas waa ina ii sawirtid markuu weerarka bilaabanayo tusaale ciidanku maxay ku mashquulsanaayeen ma jiifeen maxay qabanayeen ciidanka sideen weerarkana u gaadmada ah ciidanka loogu soo qaaday meeqa jiha loogu imaaday xalayna xaalkiina siduu ahaa inta aadan seexanin ka hor weerarka intuusan dhicin horta boodka nimanka cadowga waa laga warhaayay waa lagu saaxday waxaa la nimanka ayaga waa ina kor degan yihiin daacaw baashu waa dhiimay nin walba hasku tashado waqtigii 10 saac oo habeenimo la soo kacay adeeg almuhiim la iskuma imaan waqtigii subaxii 12 salaada subax markii laga baxay marka waxaa la siin nin walba marka baashu waa degatay sidii waxba ma lahe nin jiifta iyo nin magaalada oo dhinaca kale ama adeeg waxoogaa yara waa la isdhigtay mar una waxaana soo gashay 3 jiha waxaa naga soo gashay 3 qarax oo isha mid kastaba godadka ciidanka uu qodan yahay oo loo yaqaano tarajaayga lagu soo dhuftay wixii ka dambeeyay hub waaweyn oo noocyo kala duwan leh oo biitam qoryaha la yiraahdo biidneen iyo suugada la soo garaacay aniga meeshu marka saaxib xaalkiisu waa xaal warigayna ma arkin afjar ama weerar ciidan shabaab noo soo qaadayna waa arkay oo isha alkuma soo danaatay abdeelaan goobjoog ka ahay tii waxaan goobjoog ka ahay masagaway marka neeho walaalow baashu meel salaad iskaga xirmi lahaadaan fahmi laanahay hadda saacadan kula hadlay raga duurka ku jira nolol iyo gal lagu laayay
marka ciidanka ilaa hadda lama tiri koobin. qaar waxay jiraan galcadii soo aadeen aniga aan kamid ah, qaar waxay jiraan Miskawaay, qaar waxay aadeen Cayleer, qaarna juqday ku jiraan oo ilaa hadda yani meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan ma yaqaanaan. ilaa ay galcad dadka qaar ee lugay maxay ku tageen, lugay ku imaadeen Soomaa? anigaan kamid ahaa, lugaan ku tagnay. waxaan soo baxnay 3 saac oo subaxnimo, caada maqribkii 2 saac aan soo galnay. waa la soo lugeynaa, meesha gaarig male ma soo geli karo. xataa marka magaalo soo dhawaanay qarxa nala kacay, ragaa nooga dhaawacmay oo ciidanka Uganda lagu soo tababaraa. marka ciidan meesha joogo oo ciidanka military laga keenay iyo ciidan laga keenay aan dhahay ciidanka gorgor qaar kamid ah oo meesha jooga, ciidanka u gurmaday xoogaa ayaga naseeyahaysta ayaga caawiye. anigu maba isku mashquulin. horta gaarig ma jiro madada koowaad. anigu baawur waxba noo badbaadaba 2-3 beebaa noo badbaaday, waxa yaro ambalaasyo yar iyo baawur saad noo saarnay. gaariga saadkaa saarnay waa shidaalaan oo gaariga booyada biyaa loo isticmaalay, waxaa waaye shidaalaan ay ahayd, waa laga soo cararay. baawurta kalena tarajaayada ku dhaceen oo godadka ku dhaceen, markii darawaliinta ay la soo carari maagan way ka dhaawaceen, iskaga soo tageen. shabaabaa qabsaday oo 3 baawur oo hadda la sheegay oo ayaga xataa qaarkood luga ay ka qarxeen oo ilaahay kuma soo darnaaday. xaalkooda waxaa uu yahay meydaan wadnaa, dhaawacayaan wadnaa. ilaa haddana dowladii yani rbood saxa ma jiro. saraakiishii waxaa inteeda badan oo noogu sarreysay waa wada dhaawac. taliyo guutida waa dhaawac, taliyo ururka waa dhaawac, amanduurka waa dhaawac. 3 taliyoon waa dhimatay. marka taliyoon mid waa qaarkood waa dhaawac. ciidanka laakiin ilaa hadda xataa aan la tiri koobin oo la dhihi karin hebel baa dhintay, hebel waa nool aan la dhihi karin. ilaa hadda saacadaan aan nolol ku la'nahay oo asxaabteena oo saaxiibadeena diyaaradihii gurmadka samayn rabay ee idinka idiin soo socday waxaa la sheegay inay idiin imaan waayeen. baabuurtii gurmadkan sidoo kale amniga daraaddeed loo wada baqay. marka idinka ma niila sheegay arrintaas? aniga horta diyaaraddu way timaadaa, laakiin diyaaradda ayadaa dadka majaabilayso. marna way soo daahaysaa oo markii meesha la qabsado wixii la rabo laga samaysta iska timaadaa. marna inta hawada ay soo gashay yani waxay ku leedahay waxba ma arko oo meesha ma duqay kale ku leedahay. maanta dee waxa waaye iska soo dhaaday. mar dambay timid gantaale eerida ku dhufatay, waxba ma gaarsiin nimanka cadowga ah. haddana iska laabatay. waa midda Amerikaanka. markii hore nimankan Turkiga nala shaqay jiray oo si fiican noo caawi jiray, baariiqdaari wada jireen baashi. marka ayadu hawada kama bixi jirin. marka يعني ما soo gaarto galgaduud. ayadu waxay ku eg tahay aadan yabaal ilaa shabeellada hoose ka shaqeysa. kuwa Turkiyada ma soo gaaran meesha. nimanka Amerikaanka diyaaradooda ka shaqeeyo. marka nimanka ayaga marna waxay ku leeyihiin difaaca ka baxa waa la duqeeyaa. markii meesha laga qabsadana gantaalo waxay ku dhufataa oo feeg oo meesha iska qiiqaayo, yani waxba gaarsiinayna ku dhufanay kadibna iska noqonay. nimanka cadowga markaad soo qabato aa wareysato diyaaradda Amerikaanka ama diyaaradda maxaa ka aaminsan markaad tiraahdo waxay ugu leeyihiin diyaaradda Amerikaanku 5 daqiiqo bas ee geedaha laga hoosgaro kadibna ayada iska laabata. laakiin midda Turkiyada nafta noo keetay ku leeyihiin. marka diyaaraddu waxa la isku hadlay karo ma ahan. oo waxaan ku arkay dagaalkii Miskawaay ka dhacay ciidanka military lagu laayahay ayadana kortaagan ee baashu ay tiri anigu waxba ma arkay, waxbana ma duqay karo.